iyadoo dhawaan lagu wado in la daafuro koobka degmooyinka gobolka Banaadir oo ah koobka ugu xiisaha badan oo taabagaliyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa diyaar garowgii ugu dambeeyay ku jira dhammaan degmooyinka ka qayb qaadanaya tartankan xiisaha badan degmada Kaaraan oo kamid ah degmooyinka ka qayb galaya tartankan Osaka xarunta tababarkoodu ay ku qaataan ee ah garoonka Engineer Riso Stadium aanu ku booqanayno ah Badaraja Sports si aan xogta ku saabsan diyaar garowgooda aan uga helno waxna sidoo kale diyaar garowga ay ku sheegeen inay yihiin midkoodii ugu dambeeyay kaasi oo ay ku doonayaan in sanadkan uu noqdo sanadkii ay wacdarada dhigi lahayd degmada Kaaraan gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud gudoomiyaha isboortiga degmada Kaaraan Maxamed Bashir Cali iyo macalinka hogaamin doona ciyaartooyda degmada Kaaraan Cali Xabad ayaa si isu mid ah la hadlay TV-ga caalamiga Raja Sport iyaga oo sheegay in diyaar garowgii ugu dambeeyay ku jiraan sanadkana ay heer wacan ka soo gaari doonaan koobka degmooyinka ugu horeyn waxa TV-ga caalamiga Raja Sport la hadlay gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud isagoo sheegay in sanadkan qaladaad sanadka hore jiray ay dib u saxeen isagoona dhanka kale baaq ugu diray dhammaan taageerayaasha degmada Kaaraan in ay hiil iyo hooba ay la garab taagnaadaan ciyaartooyda degmada Kaaraan soo dhaweynaya Raja Cable TV waa muxuu ahay sheeg idaacad aadi inay shacabka u shaqeyso diyaar u ah bahda isboortiga maanta waxaan rajeynayaa inay qaybteeda ka qaadan doonto maadaama ciyaarihii degmooyinka ay bilaabanayaan mar dhow insha Allah taala waan idin soo dhaweynaynaa soo dhawaada insha Allah Kaaraan waa hooyadii isboortiga hooyadii isboortiga wixii hooyo looga bartaa looga fadhiyaa marka insha Allah taala waan rajeynaynaa Kaaraanteedii horena waa tahay wixii ka dhinay ama ka qaldanayna waa u saxnay insha Allah taala wana meelihii loo maleey jiray meel ka sareeyay tagi doonta insha Allah Kaaraan rug cadaygeeda hore u shaqeynayo wixii looga bartayna diyaar u tahay insha Allah bulshadana waa qanci doontaa bulshada heer Kaaraan ayaga ah isboortiga oo bahda isboortiga ayaga wada kulligood waxay danayaanna waa isboortiga iyo isdhaxgalka bulshada ka shaqeeyaan waa magaalo nabadeed insha Allah taala waxaan rajeynaynaa waxaan uga baranay wax ka fiican inay soo saari doonaan hadii Ilaahay yiraahdo fariin waxaan u diraa isku kalsooni in la isku qabo guushana Ilaahay yaa bixiyo kubadana waa cadi madow laakiin Kaaraan waxaan ka rajeynayaa dadaal xumo dambe inay isku dhici doonaan hadii Ilaahay yiraahdo ugu dambeyn waxa TV-ga caalamiga Raja Sport la hadlay macalinka hogaamin doona ciyaartooyda degmada Kaaraan Cali Xabad isagoo sheegay in ciyaartooydiisu ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan tartankan ayna ka dhisan dhan waliba oo ahaa xagga tababarka iyo waliba anshaxa waxana dhanka kale uu sheegay in ciyaartooydu ay diyaar garowgoodu u yahay midka ugu wacna ee sanadii hore ay kaga duwan yihiin koobkana uu noqon doono midkii ay ku damaashaadi lahaayeen maamulka degmada iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan degmada Kaaraan aad ugu dhawaad Raja Cable TV insha Allah sanada hore aad ay noogu duwan tahay aad iyo aad aan isku diyaar garooweynaa maadaama ciyaartooyda meel walba aan ka soo xulnay يعني دلال فربضن وقت فربضن أنجليني يعني مدة بدن أيا جاني سلني وهاي هو سنة ده هو مدة اسمه ليري جرين هوستايل سكسو جري لكن هذا مدة في عن أيا هنلي يعني وحن لين هاي دقمدينا كاران مادام وحي نقول يقاني وحنقول يقان جري إن ضد كنا سواد جعليهن حل مال كواد إمادان حل تاجريهن هل هدف إليهن وحنعيل جري وقت عيارتود أو كويرة لكن هذا وحالين هاي dadkaas oo shacabiyaash oo dhamaan ay og yihiin inaan dadka ka muuqano insha Allah waxa leenahay ciyaartooy fiican waqti fiican aan soo gelinay waxa leenahay sanadan in ciyaartooyda wax fiican ay u keeni doonaan wax badan ayaan ku soo kordhinay waxa kamid ah inaan ku soo kordhinay ciyaartooy oo oo cusub ciyaartooyda hore aanan meesha joogin يعني وحاب في عن مر ولا بق مركات هاي عياريان مر هديات ماشي كسر مقطع دقمة ديشو وحاب في عنا هرق سعودي تيسو قفك أوصل بحاي جونيور صوب بحاي إن جانس سيسو مركا اسبدل كوب أسمين وحاء إن عيارتو عصب صو صارني أو عيارتو سند ظهري سند كحوجة أنا ليلين إماش إن بدنا كم مغنيين أو جانس الله سي عيارتو ذا كلي يرصوب بحاي كوان وحن وشجعنا مركا عيار إن سيو جدبان ناديال مش إن هرق وصعنا أما قرن كتاجان إلا يهر قرن نقان كوتيك سدان waayo sports qof walba dhila wuxuu tiirsadaa ilaa heer qaran waxa leena markii hore u firaaqayaan walaalahooda kala soo socdeen u firaaqayaan waxaan u dirayaa taageerada degmada Kaaraan sidoo hore degmada u garab taagneedeen waan ogahay inaad u garab taagnaayeen waa sanadda hore iyo sanadda ka dambeeyay aad baan noo taageerteen haddana waxa leena taageernimadiina waan hubnaa inaan u iimaanaysiin waxaan balan qaadi doonaa insha Allah in ciyaar fiican wixii la kiga aniga ilaahay baan u deynay laakiin waxaan balan qaadi doonaa ciyaar fiican iyo guul qurux badan inaan meeshan aad qaadi doontiin inkoo sacbiskiina aadan
waqti ku lumin doono insha Allah. ugu dambeyn koobka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa 10 bisha September ee bisha nagu soo wajahan in laga furo dhammaan garoomada lagu ciyaari doono ee tartankan waxayna noqon doonaan garoomadaasi Engineer Riso Stadium garoonka jaamacadaha waxaana taabagelinaya maamulka gobolka Banaadir waxaana ka qayb qaadanaya gabi ahaanba degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo heerkoodii ugu dambeeyay ee kaga jiraan xagga tababarka oo ay isu diyaarinayaan gudoomiyaha isboortiga ee degmada Kaaraan Maxamed Bashir Cali ayaa qudhiisu waxa uu sheegay in diyaar garowgu uu yahay midkoodii ugu dambeeyay ayna uga fadhiyaan ciyaartooyda in ay awoodooda isboortiga ay ku soo bandhigaan garoomada lagu ciyaari doono koobka degmooyinka gobolka Banaadir aad iyo aad rajaga Cable TV aad iyo aad ku dhawahay dhammaan maamulka iyo shaqaalaha waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad macnaha sanadkan rajadiina waa 100% saan qiyaasaya ama daam aan soo sameyn training aad oo muddo ku dhow adiga 3 bilood tababar aan sameeyeen waana jira waqtiyo badan aan qaladaad naga dhaca oo tartanka groupka ku harnay laakiin sanadkan waa ka bedelan sanadkii hore sidaan ahayn waa ka wanaagsanaa 190 wallaahi waa jiraan macnaha maamulka inta badan 199 macnaha wuu taageeraa macnaha ciyaartooyda wuxuu aad iyo 190 wuxuu sameeyaa qalabka alimiitada ay saa noo gaday tan kalena macnaha biyaha qalabkii maalinta sportiska ayaga dhiibay maamulka waana macnaha shaqada ku jirta meesha marka qofka waxa marka loo qabanayo waa inuu leeyahay maalgelin ku saabsan sportskan season waa dhaqaale haddii dhaqaale uu si jirin sports ma jiri karo marka degmada aad iyo aad 100 kaalinkeed waa ka soo baxsan qiyaasa wallahi taageerada degmada Kaaraan waxa leeyahay sidii lagu yaqaan taageero degmada waa degmadiina waa ina garoonka soo bixisaan sidii lagu yaqaan aad taageerta ciyaartooyina dhiirigelisaan sidii macnaha waayidii hore kale aan noqono labada sanad ugu dambeeyay oo qaladaad ka dhacay degmada laakiin sanadka waxa jaan 199 inuu aan meel fiican ama koob kuliis kale aan meel fiican tagi karin tartanka